dhalinyarada ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa 26 Juun hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed ayagoo la hadlay telefishinka caalamiga ee Royal sida ay warkaasi inoogu soo dirtay wariyaheena Najma Maxamuud Salaada 26 Juun ayaa waxay tahay maalintii laga saaray gumeystihii dalka Soomaaliya dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay u dabaaldegay 26 Juun galinkii dambe ee maanta 26 Juun ayaa dhalinyarada ku dhaqan magaalada Buuhoodle si weyn ugu dabaaldegay 26 Juun iyadoo dhalinyarada ku dhaqan magaalada Buuhoodle hambalyo u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed uguna hambalyo 26 Juun oo maalin aad ugu weyn ummadda Soomaaliyeed waa kuwan iyagoo dhalinyarada la hadlay telefishinka caalamiga ee Royal TV طبعاً حسينو لحد وقتك جومان كي حرية الصومالية قادتي أكون سؤال مغني لحنكي وقاتين قبلهم وقوي قبل كونفرنا يكتب بين أفر معلومات أو الحسد دونا أفر معلومات كبعد إن شاء الله تعالى أنا وما أنت وحنو يستعجلين هم حسنو لحد وقتك جون وكوبيجان ما أنت دلنيرتو لما أنت دوشي سوي مادين إن يكسر كقريب قاتان معها نمبر فربان إن لهلا بس إن qofka qalbigiisa uu ka goodo inuu xuso 26 Juun waxa yeelay waxa weeye maalinka aynu xorriyadda qaadanay oo calankii aynu garanayno ee ah calankeena bilowga dibadda loo taagay lana dejiyay kii Ingiriiska ee ka babanayay gobolada waqooyi maanta waa maalin weyn runtii waa maalin ummadda Soomaaliyeed qalbiyadooda ku weyn waa maalin qofka Soomaaliga wax kasta ha aaminsanaadee isaga ku weyn oo aysan ula sinayn maalmaha kale ee Ilaahay sameeyay ilaano ومالكو حرية سقاطي حرنا وهذا إنه نستقلال قاطع أما ودن كيس أمة بنانا. يا مناسبة اللي لبعتك جون مالكي وجوه الرئيسي على الصومالية حرة وكبب الدنيا مالكي وجوه الرئيسي ضد الصومالية وحرة وعرن له الدنيا ذا كتر سنة أي حرمة قاطن وحنسي جارو وسهم بليان يا شعبنا في أرض وقوي كواس وما أنت وكلا اللي لبعتك جون هلاي حرنيمادooda xilligii markaas way iska direen gumeysigii sida laakiin waxaan rabaa inaan ugu duceeyo goobta ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye halgankii hubaysnaa oo hoggaanka u aasay Maxamed Cabdulla Xasan kooxdiisii daraawisheed hogaamiyayaashii oo ugu horeeyo abwaan halgama Sheekh Ismaaciil Maragdi sidoo kale waxaan hambalyo waxaan kala ducaynayaa سياسي شيخ هالجماع حاجي صالح عمر وإسمه كملها رجلي بيجو وشو. شغلنا قلب بلان أو بقرن قلبتي waxaan joognaa 2019 Juun 26 waa markaan qaadanay xornimada waa markaan la soo noqonay Soomaalinimadeeni waa markaan ku beernay caalamka waxaan joognaa galab aan la qiyaasi karin farxadda iyo jooga aan dareemano runtii waa galabaha waa taariikh aynu ka baxnay waqti ku madow waa taariikh aynu noqonay dad laga aqoonsan yahay adduunka waxaan u hambalyeynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waqooyiga Soomaaliya oo 26 Juun qaatay xornimadooda gadamaan sawaataan ka tagay gogoldhigeedii gabigeedba waataan jorongooyay waa hore waataan gadeedii ka baxay gabi ahaanteede hayeeshee gulaanow haddaan soo gudbinayaaye gaaladii dalkeennii kol hore ganada soo saartay gol xabtiyara saasaha midii nagu dumaadaysay geedaha midii nagu xidhee giriirka kicinaysay midii gamanadeennii kacaba go'a u taagaysay gabdhaheenna nimankii magliga geliyey ee dooxay guurtida raggii gaawaree gowrac ugu taagay guryaheenna nimankii gubee gumaca leefsiiyey gobonimada raggii diiday ee geeli naga qaaday gamankii badnaa iyo warmihii nagu gidaashaayey nimankii guryaha geystay ee ugu ujeynayay gaalkii u soo kacay guulkii u soo kacay naftana geedka soo saaray nimankii godoodee kufriga goolka soo dhaliyay gobonimada nimankii arliga geliyey waagiiba garoonkay wadeen ciidankii ina gumaadayay geesiyadii maantay kaceen weydinkaa garane galabtay istaageen ayaan gacala joognaaye gudbiya waxaad
xaajo agunti 26 Juun ayaa waxaa xuso dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay kala joogto Najmi Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga Royal TV magaalada Buuhoodle.